sanad ka hor maanta oo ay taariikhdu ahayd 31 May 2021 waxa guud ahaanba Soomaaliland looga dareeray doorashadii isku sidkanayd ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee Soomaaliland taasoo ahayd doorasho si weyn u soo jiidatay indhaha beesha caalamka iyo daneeyayaasha caalamiga ah ee la saaxiibka ah Soomaaliland. doorashadan isku sidkanayd waxay isu diiwaangeliyay codbixiyayaal tiradoodu ay dhan yihiin 1,560,840 qof, balse waxaa si rasmi ah codkooda u dhiibtay muwaadiniin tiradoodu ahayd 695,915 qof, taasoo muujinaysa in codbixiyayaasha diiwaan gashana ay 65% ay doorashada u soo dareereen si ay u soo doortaan cidda ku matalaysa golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanada ee dalka. doorashadan oo ahayd mid ay dowladda Soomaaliland, xisbiyada qaranka iyo komishanka doorashooyinkuba si weyn uga wada qayb qaateen abaabulkeeda iyo diyaarinteeda. waxa golaha wakiilada oo ka kooban 82 kursi ku soo loolamay 246 murashax oo ka kala sharaxnaa 3 xisbi qaran ee kulmiye, wadani iyo ucid, halka sidoo kale golayaasha deegaanada ay ka sharaxnaayeen 552 murashax oo u tartamayay 220 kursi oo kala yaalay 20 degmo doorasho oo ka mid ah 23 degmo doorasho ee Soomaaliland, iyadoo goobaha loogu talagalay in dadku ay ka codeeyaanna ay tiradoodu ahayd 2,709 goobood dalka oo dhan. sida ku cad warbixinaha rasmiga ah ee doorashadan laga soo saaray, waxa goobaha codbixiyayaasha ka howlgalay shaqaale iyo howlwadeenno kala duwan oo tiradoodu ahayd 30,000 oo qof, iyadoo sidoo kale ay doorashada ka qayb galeen goobjoogayaal caalami ah oo ka kala socday dalalka caalamka iyo kuwa maxalli ah. waxayna doorashadaasi ku calaamadsaneyd inay ahayd mid ay dowladda Soomaaliland maalgelinteeda bixisay 70% oo lacag ahaan noqonaysa 22.8 milyan oo doolarka Mareykanka, taasoo ahayd cashuurta ay bixiyeen muwaadiniinta Soomaaliland, halka inta soo hadhay oo qiyaas ahaan ahayd 30% ay bixiyeen saaxiibada Soomaaliland oo ay ka mid yihiin Midowga Yurub, Sweden iyo Taiwan. doorashada isku sidkaneed ayaa goobaha codbixiyayaasha la furay 6dii subaxnimo ee 31 May 2021, waxayna socotay ilaa maqribnimadii maalintaas, iyadoo guud ahaanba ay doorashada iyo codbixintuba ku dhammaatay si nabadgelyo ah. waxyaabaha kale ee doorashadan xasuusta gaarka ah ku reebay waxaa ka mid ahaa xisbiyada mucaaradka ah ee wadani iyo ucid oo si weyn ugu guulaystay doorashooyinkaas, islamarkaana ka guulaystay xisbul xaakimka kulmiye, iyadoo xisbiga wadani ku guulaystay inuu helo 31 mudane oo ka mid ah 82 xildhibaan ee golaha wakiilada. xisbiga kulmiye ayaa isna helay 30 mudane, halka xisbiga ucid uu helay 21 mudane. waxayna guusha aqlabiyadda goluhu raacday xisbiyada mucaaradka, taasoo markii dambena u fududaysay inay hantiyaan guusha doorashadii xubnaha shirguddoonka golaha wakiilada, gaar ahaan kursiga guddoomiyaha oo ay si weyn ugu xafiiltameen mucaaradka iyo muxaafadka Soomaaliland. waxaana kursiga ku guulaystay Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo noqday guddoomiyaha golaha wakiilada. waxa kaloo ay xisbiyada mucaaradka ahi ku guulaysteen inta badan maayirada iyo ku-xigeenada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, iyadoo sidoo kale guud ahaan tirada xubnaha golayaasha deegaanada uu xisbiga kulmiye ku guulaystay inuu helo 93 xubnood. xisbiga wadani ayaa isna helay 79 xubnood oo golayaasha deegaanada ee dalka, halka ucid uu helay 48 xubnood oo ka mid ah 220 xubnood ee ka kooban yihiin guud ahaanba golayaasha deegaanada ee degmooyinka dalku. waxyaabaha doorashadan isku sidkanayd ee sanad ka hor qabsoontay si gaar ah loogu xasuusto iyadana waxaa ka mid ah in xukuumadda kulmiye iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay aqbaleen
in xisbiyada mucaaradku kaga guulaysteen golaha wakiilada iyo maayrada magaalooyinka waaweyn ee dalka oo maanta gacanta ugu jira mucaaradka Somaliland, iyadoo madaxweyne Biixi isla maalintii lagu kala adkaaday shirgudoonka uu xarunta madaxtooyada ku qaabilay xubnaha shirgudoonka ay hoggaanka u hayaan mucaaradku, taasoo lagu tilmaamay inay ahayd bisayl siyaasadeed oo ay muujiyeen mucaaradka iyo muxaafadka Somaliland. hase yeeshee sanad guuradan koobaad ee ka soo wareegtay doorashadii isku sidkaneyd ee sida weyn loogu ammaanay madaxweynaha Somaliland ayaa ku soo beegmaysa xilli uu khilaaf weyn oo siyaasadeed ka taagan yahay Somaliland, iyadoo xudunta khilaafkaasina uu salka ku hayo qabsoomidda doorashada madaxtooyada oo ku mudaysan 13 Noofembar 2022, halka sidoo kale khilaaf uu ka taagan yahay sida loo kala horreysiinayo labada doorasho ee madaxtooyada iyo ururada tooska ah ee ururada siyaasadda iyo xisbiyada hadda jira. mucaaradka Somaliland waxay ku taagan yihiin isla markaana rabaan in 13 Noofembar 2022 la qabto doorashada madaxtooyada ee Somaliland, halka xukuumadda madaxweyne Biixi ay rabto inay doorashada ururada ka soo horreysiisataan madaxtooyada. dadka wax falanqeeya waxay qabaan in farsamo ahaan ay xataa adkaanayso in labadaas doorasho lagu qabto inta ka horreysa 13 Noofembar. Khadar Hibasaab TV. dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.